kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya markaa niyada u dejinaya madaxweynaha maamulka Puntland wasiirka amniga oo qaatay go'aamo halis ah iyo shacabka Muqdisho oo cabsi xoogan soo wajahday odayaasha dhaqanka Puntland oo la saftay hogaamiyaha BSF-ta Puntland sababtoo ay waqtigan ay ula safteen Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo digniin culus waqtigan kala kulmaya qaramada midooba maxay tahay digniinta waqtigan uu la kulmaya Axmed Qoorqoor ayaan daawadayaal warkeena janaalkeena runta wararka idinkugu soo gudbin doona hadaba daawada hadii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka isla markaana wararkeena like share commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeyo madaxdii hore ee dalka ayaa waxa kulamo kala duwan ay la qaadanayaan qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada ugu horeeya Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay kulamo kala duwan ay la yeelanayeen maalmihii ugu dambeeyay qaar kamid ah madaxda midowga musharaxiinta Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Puntland ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoona kala hadlay dardargelinta arrimaha doorashooyinka Sheekh Axmed oo ah musharax madaxweyne ayaa waxa uu hadda kulamo kala duwan uu la qaadanaya madaxda maamul goboleedyada isla markaana uu ka doonayay inay taageeraan isla markaana uu horay u sheegay Shariif Sheekh Axmed in ay mar waliba ay ka warqabaan talaabooyinka ay qaadayaan madaxda maamul goboleedyada qaar hogaamiyihii hore ee dalka ayaa waxa uu hadda uu si cad u sheegay in ay mar waliba ay ka go'an tahay inay taageero cad u muujiyaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka kulamada kala duwan ee Muqdisho ka ayaa waxay yihiin kuwa aad looga hadlayo dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo sida maamul waliba ay garab uu kaga heli lahaa maadaama ololaha waqtiga doorashada lagu guda jiro tanina waxay ka dhigan tahay in ay kulamadani ay noqon doonaan kuwa aad isbedel ay ku doonayaan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inkastoo uu Muqdisho uu ka dhoofay haddana waxa uu kulamo kala duwan uu la qaatay Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud kulankan oo saacado qaatay ayaa ka dhacay hoyga Axmed Madoobe oo ka deganaa caasimada Muqdisho waxaana diiradda lagu saaray xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka ujeedka kulankan ayaa waxa uu ahaa sidii loo dhaqaajin lahaa heshiiskii cusbaa ee lagu gaaray Muqdisho waxaana Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dalbadeen inuu dardargeliyo doorashada si waqtiga loogu qabtay uu soo gabagabowdo doorashada baarlamaanka sidoo kale madaxweynayaashii hore ayaa hogaamiyaha Jubbaland ku bogaadiyay dadaalkiisa iyo doorkii uu ku lahaa shirkii lagu soo gabagabeeyay Muqdisho dhanka kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu markuu shirkaasi soo gabagabo kadib aaday dhanka iyo magaalada Kismaayo hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ee caasimada maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu maalmihii ugu dambeeyay uu ku sugnaa magaalada tani caasimada ah ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada caasimada ee Muqdisho ayaana maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo caasimada ku meel gaarka ah Jubbaland mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka mas'uuliyiin ka tirsan labada gole iyo dadweynaha kala duwan ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo madaxweynaha ayaa Muqdisho kaga qayb galay shirka madasha tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka laga soo saaray go'aamo cusub si loo sii dhaqaajiyo doorashooyinka golaha shacabka ay qaybo kamid ah dalka ay ka bilowdeen inkastoo hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ay weli haddana Muqdisho ku sugnaayeen maalmihii ugu dambeeyay isla markaana go'aamo adag qaadanayeen ayaa hadda waxay u muuqanayaan inay weli ay doonayaan inay talaabooyin adag ay qaadaan dhanka kale isimada maamulka Puntland ayaa waxa ay go'aan adag ay soo saareen ay ku sheegeen in gebi ahaanba ay muhiim ay tahay in Maxamuud Diyaano loo sii daayay hogaanka sare ee hay'adda BSF-ta Puntland Maxamuud Diyaano ayaa horay xilka qaadis waxa uu sameeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hase ahaatee odayaasha dhaqanka Puntland ayaa waxay sheegeen in marnaba aan xilka qaadis uu ku sameyn karin madaxweynaha maamulka Puntland Maxamuud Diyaano hogaanka sare ee hay'adda BSF-ta hogaanka sare ee BSF-ta ayaa hadda waxa la sheegayaa in loo deynayo Maxamuud Diyaano inkastoo ilmo Diyaano iyo sidoo kale Dani khilaafkooda uu ahaa mid aad u sareeya haddana odayaasha dhaqanka kulamo kala duwan ee maalmihii ugu dambeeyay
ku yeelanayeen magaalada Kismaayo ayaa hadda waxa uu muuqanayaa in gebi ahaanba khilaafyadii taagnaa lasoo gabagabeeyay inkastoo aan la ogeyn go-aanka uu qaadan doono hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo horey u sheegay inuusan marnaba go-aankiisa xilka qaadista Maxamuud Diyaano uusan ka laaban doonin. tanina waxay u muuqanaysaa in mar kale magaalada Boosaaso ay geli karto xaalad dagaal. magaalada Boosaaso ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka deegaanada maamulka Puntland waana magaalada ganacsiga ee maamulkaasi inkastoo hadda isimada Puntland go-aankani ay soo saareen uu muuqan karo mid dhaqangeli kara hadse ahaatee waxaa hadda la doonayaa in go-aan kale uu qaato hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani iyadoo sidoo kale isimada maamulka Puntland ka digay dhaqaalaha faraha badan ee waqtigan dekada Boosaaso kasoo gala in ay marnaba macquul ahayn in shirkadda DP World ay qaadato. waxayna sheegeen isimada 17% in iyaga ay doonayaan in gacanta loo soo geliyo dhaqaalaha kasoo baxo dekada magaalada Boosaaso. labadani go-aan ee aad ku adag ayaana la ogeyn waxa uu ka dhihi doono madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu kamid yahay shakhsiyaadka hadda aad ku mabda adag isla markaana ka jira deegaanada maamul goboleedyada dalka. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa horey waxa uu sheegay inuusan marnaba tallaabadiisa ku aadan xilka qaadista uusan bedeli doonin haddana lama oga wax kasto iyo sidoo kale go-aan kasta ee kasoo baxay odayaasha dhaqanka maamulka Puntland sida uu taageeri doono madaxweynaha maamulkaasi. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda maamul goboleedyada ee weli ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana doonaya in go'aamo adag ay ka qaataan arrimaha doorashooyinka dalka. doorashada Soomaaliya ayaa hadda waxay u muuqanaysaa in dardar xoogan ay doonayaan inay ku sameeyaan madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland inkastoo Siciid Dani culays xoogan uu ka haysto dhanka hay'adda BSF ta mas'uuliyadooda. haddana warar hoose aan helay ayaa waxay sheegayaan in dagaalkaasi gebi ahaanba hadda odayaasha dhaqanka maamulka Puntland ay soo gabagabeeyeen. dhanka kale wasaaradda amniga go-aanka ee soo saartay ayaa waxay u muuqan kartaa mid carqalad xoogan ka dhex abuuri karto shacabka Muqdisho. wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si laba filaan ah waxay u sheegtay in go-aankii horey ee u soo saaray maamulka gobolka Banaadir ay ka soo horjeedaan isla markaana waraaqada dibadbaxyadu ay horey u saxiixday wasaaradda isla markaana wasaaradda amniga ay taageersan tahay. wasiirka wasaaradda amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa waxa uu sheegay in uu horey u fasaxay isla markaana waraaqadii shalayto ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir ay ku beegneed 11 bisha gebi ahaanba ay tahay mid been abuur ah inkastoo waraaqad ku saxiixneyd 10 bisha ay soo saartay wasaaradda amniga. hase ahaatee daljirka Daahsoon ayaa waxaa lagu wadaa in dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo inay ka dhacaan inkastoo aan la ogeyn dibadbaxyadaasi iyo saameynada ay dhali karaan. hase ahaatee mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay si cad u sheegeen in marnaba uusan Muqdisho ka dhici doonin dibadbax looga soo horjeeda Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxaa si gaar ah isugu dhacsiin isaga iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. khilaafka siyaasadeed ee waqtigan mas'uuliyiinta ka dhex jira ayaa waxa uu yahay mid saameyn badan shacabka ku dhex yeelan karay inkastoo shacabka reer Muqdisho ay baqdin xoogan ay ka muujinayaan in dagaal Muqdisho uu ka dhaco. haddii uu dagaal Muqdisho ka dhaco dhibaato badan ayaa dadka reer Muqdisho ku noqon doonaan dagaalkaasi inkastoo aan la ogeyn go'aamada ay qaadan doonaan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir. haddana waxaa socda abaabulkii ugu dambeeyay ee la doonayay inuu ku dhaco dibadbaxaasi. Axmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa hadda qabanqaabinaya in dibadbaxyadaasi ay dhacaan inkastoo dadka qaar ay ka baqdin qabaan in dagaal foolka fool ah uu ka dhaco gudaha daljirka Daahsoon. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal wanaagayta daba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noo saara waad mahadsantihiin.